بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa jimco wanaagsan insha Allah ilaahay idinkiisa waxaan doonayaa wixii hadda ka dambeeya inaan barnaamij joogto ah ee ku saabsan barbaarinta waxbarashada jiilalka soo kacaya la doonayo inaan u dhisno qaabilaadda nolosha caruurta soo kacayso jiilalka soo kacaya soo socdo haddaan meel walba joogno qurbaha iyo dibaddaba inaan ka dhisnaa aan xoogga saarnaa dadkiina bedeli lahaa ee xukunka la wareegi lahaa jiritaanka ummadda sii kaxayn lahaa ay yihiin marka xaq waxay u leeyihiin inaynu dhisno oo aynu wadno oo aynu u falno waddada tusino nuurino aan dhahno intay yar yihiin la kobciyo la barbaariyo oo la yidhaahdo waddadan waa waddada aad ku maraysaan mustaqbalkiina jiilalka soo kacaya ee socda insha Allah ilaahay idinkiisa inaan doonayno inay Soomaaliya u horseedaan waxaan rajaynayaa in noqdaan kuwa educated ah ee wax garanayo ee nolosha fahmayo ee aan jug iyo jaq aan wax ku lahayn ee iskoolaad soo maro oo tarbiyad nadaafad qaato barnaamijyadaasaan wixii hadda ka dambeeyaan bilaabi doonaa maanta hore dhacay muqadamaan usoo qaadanaya kaliya qaybtan waa barnaamijkii iigu horreeyay Facebook aan kusoo galo oo aan yidhi allay lehe maadaama aad dhowr iyo 10 sano aad ka waday qurbaha telefishinno kala duwan farbarashada caruurta iyo naxwaha af Soomaaliga iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed bal markaan isku dar Facebook inaad mataqaanaa gasho oo aad insha Allah ilaahay idinkiisa waa barnaamijkii iigu horreeyay wixii hadda ka dambeeyay barnaamijka khubaro taxanaha ah oo farbarashada caruurta qaabka loola sheekaysto qaabka loola fadhiisto qaabka wax loo baro sida loogu soo dhaweeyo miiska farbarasho miiska xiriirka waalidiinta farbarashada caruurta miis la far guryaha in tuwishanada wacyigelin in aynu u soo jiisano xagga nuurinta xagga dhisidda xagga barbaarinta caruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaynu u jeednaa zamankan aynu ku jirno 28 sano wax walba waxa waa burbureen maskaxdii baa dhamaatay maskaxdii waa jabtay maskaxdii waa burburtay dadkii isdhaxyaac iyo waxaad ka dhacay Facebook-aan iyo meel walba aragtaan iyo qoraalada iyo in dadkii isku wada mid ay noqdeen oo aan la kala soocin ay isdhex galeen oo qof walba kaalintiisa loo day waayay oo nin walba wuxuu doono ku hadlay qoriyo sameeyay ku kacay waa 28 sano waa lunay marka bal inaynu isku soo noqono oo dadnimadii iyo Soomaalinimadii iyo kaalintan adduunka ku lahayn haddaan nahay Soomaali inaan soo celinaa qarannimadii dowladnimadii sharaftii kala dambeyntii ismaqalkii waxbarashadii ciidamadii caafimaadkii wadooyinkii furdadii diyaaradaha adduunka xiriirka Soomaaliya marka insha Allah ilaahay shakhsi walba kaalinta kaga aadan dib u dhiska bulshada runtii ay markaan u soo jeesan waan daalnay qarar waxaan galnay 2019 hadda la maraya oo aad u jeedna waqtiga uu sheegay 2019 waqtiga uu socdaa ummadda Soomaaliyeed inaan saan isu dhaano bal horta ayna markaan u soo jeesano ummadda wax in la baraa weeyaan ogaada cilmigu education discipline is your brain cilmiga waxa uu dhaqaya oo nadiifinaya maskaxda oo dhisaya cilmiga waa nuur cilmiga waa aqoon cilmiga waa wax ku sheegaya waxa qaladkiisa sax cilmiga waxaad hore wax ugu marinaysa weeyaan marka jiilal dhan baa lunsan 90kii dinkii 29 jiray ama 20 sano jiray 48 sano uu jiraa maanta weligiis ma arkin heekalnimo iyo dowladnimo iyo nidaam iyo qaab iyo system ma arag 90kii ninkii 10 jiray 38 buu jiraa marka waxaa la doonayaa in aynu insha Allah ilaahay idinkiisa ummadda u wada faa'iideynaa aynu wada faa'iideysanaa aynu markaan isqabanaa adduunka waa naga tagay dowladahan shalay anaga xoreyno Afrikaanka ah annagay maanta waa kuwaasaan dul saaran kuwii shalay annaga aan u heesayno ciidamo u dirino tababaraan siinin dhisin annaga bayna dul saariin maanta annaga bayna haystaa hal laga baxo insha Allah ilaahay qaybtan waxaan ku soo qaadan doonaa
xagga maaragtay farbarashada caruurta barnaamijyo kala duwan halkaas soo saari doonaa naxwaha af soomaaliga aan qoro hadda soo dhameeyay insha allah waa laga faa'iidaysan doonaa buugii farbarashadana waa diyaar editionka labaad wixii hadda ka dambeeyna waxaan rajaynayaa insha allah inaad share garaysaan daawadayaashayda yani facebooka qaybtan farbarashada caruurta iyo kobcinta barbaarinta jiilalka soo socdo ee aan doonayno ummad dalkeena xukumaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu